maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo weheliyaan maayirka xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa maanta si rasmi magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga dhawaaqay inay si kumeel gaar ah laba wado muddooyinka u dambeeyay ay socdeen dhismahooda kuwaas oo kala wadada xaafadda Hodan Qayle iyo waliba wadada isku xidha jaamacadda Burco iyo waliba gudaha magaalada Burco maayirka degmada Burco Maxamed Muraad oo ugu horreynba ka hadlay furitaanka labadani wado ayaa sheegay in si kumeel gaar ah loo furay wadooyinkan isla markaasna ay ka faa'iideysan doonaan dadka iyo waliba gaadiidka tirada badan ee u kala goosha wadooyinka xaafadaha Hodan Qayle iyo waliba wadada jaamacadda Burco waxaana maayirka Burco arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii kamid ah sida tan waa wado dhererkeedu yahay 3 kilomitir waana wadada xalqalaha gasha 1 kilomitir maanta 180 oo dhameystirmay mariyana hareeraha inta badan baa harsan iyo ayraj bridge-ka sida awgeed waa wado aad iyo aad u jaama oo dad badan oo baabuur badan waxaan ku tala galay maanta in loo sii furo 1 kilomitir si ay baabuurtii dadku ay u maraan oo ay dib ku noqonin 2 kilomitir hareena waa ilaa kilomitir dhow yaala kilomitir hareena waa la sii waday ilaa xabaalaha wadada la gaarsiin doono hadii Ilaahay ka dhigo waliba waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dadweynaha xaafadda Hodan oo contribution badan ka geystay wadada 2 kilomitir ee dambe iyo tigaha oo iyaguna contribution ka mid lamida ee ka geystay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda sameysay oo Relate Construction Company oo wadooyin hore noo sameysay iyaduna kulli waa u mahadcelinaynaa maanta dankoodana injineerada dhisaya labadani wado ee Hodan Qayle iyo waliba wadada gasha jaamacadda Burco ayaa iyaguna dhankooda faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan wadooyinkani waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan sida uu sheegay wadada waxa dhamaaday qaybtii daamurka ee asal daamurka ka qaybta markay dhamaatay waxa loo qaaday sida uu sheegay gudoomiyaha xaafaddu dad badan tahay gaadiid badan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Cabdirasaaq Saciid Faarax Abdi ahna mas'uulka shirkadda ama mulkiilaha shirkadda Oriental Construction Company ee wadadan jaamacadda Burco isku xidhay iyo magaalada waxaan maanta halkan idinku sheegaynaa halka ay wadadu marayso inaanu idin ka siino xogaa warbixina wadadu mudday soo socotay bil iyo bara si fiican bay noogu socotay alxamdulillaah rabbil caalamiin kastoo caqabado yar naga hor yimaadeen laakiin waan xalinay maanta waxay maraysaa gabagabo arakaawadeedii way noo wada dhan tahay way noo sallaxan tahay meel yar oo naga dhinaaban maanta xaalkeedii wadnaa insha Allah ta'ala maanta waxaan rajaynaynaa dhamaystirno garaacisteedii waxeedii oo dhan horena waan u garaacnay dabeedna aanu bilowno daamurkii si temporary aan u furi doono maanta oo dadku ay iska dulmari doonaan si kastaba ha dawladda hoose degmada Burco ayaa iyadu muddooyinkii u dhameysay gudaha magaalada Burco ka wada wadooyin kala duwan ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش شبكة عالم News Burco